waxyaabaha la qabto waxa kamid ah dhamaystirka hanaanka federaalka oo shalay soo gabagabay wax la inkiri karo ma aha xasan sheekh barafso xasan markuu imaanaa madaxweynaha laga dhigay ma aysan jirin Jubbaland ma jirin maamulka koonfur galbeed ma jirin maamulka galmudugna ma jirin Puntland bas taagneed wax xaqiiqo waay Jubbaland oo dhisay maamulka koonfur galbeed oo dhisay galmudug oo dhisay Hirshabelle oo hadda dhisay shalay soo gabagabay wax qabadkay qayb ka tahay حسن الشيخ معمول نمارة آدي مهلا وبوليستي سياسة ديس وهواي ما شاء الله ويل وهواي بولشة ويل وأودش ويل سومال أودش إنه هي أي موقته ويا قاب يسبدل يهرمك سياسة دي بدي يضل كبر سيد وبوليست آدي أنا وفرح سنها ونقنع سنها جلنت فداليزمك اسمها معمول قبلية حياتك كوبادا كنبت جليدة wax kale arrimaha bulshada marka way kala horeeyaan wax badan wax buu ka qabtay raadkeeda maanta la sheegi karaa inuu dhameystiray habkii federaalka ahaa oo maartay loogu talagalay waajibaadkii dawladda ay lahayd ah in maanta uu dhameystiray waxaan leeyahay dawladdaas 4 sano hawl muuqato oo xagga maamulka xagga ciidamada sidaan ognaa dhismaha ciidamada tababaradooda tayeyntooda maanta waxay maraysaa ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo meel laga bilaabo leh sidii shirkaan u miray dhal lahaa waxa soo dhan uu ka shaqeynaya madaxweynuhu muddo dhowr jeer ayuu ku laabtay Hiiraan Joorna uu yimiday dhabar adeeg fara badan iyo dadaal fara badan ayuu ku bixiyay madaxweynuhu in maanta guushaan la joogo la gaaro waxaanu u xulay dad yacni qiimo gal ah oo waxa ka shaqeeya ayaa uu taladiisa iyo tusaalihiisa ay ku yimideen maanta waxa halkan laga gaaray الشيخ wax badan oo qabtay Soomaalidu laakiin waxay taqaanaa inay isku dhinac ordo waxaan ma taqaanaa anigu aad iyo aad ugu faraxsanahay wax qabadka Xasan Sheekh sababta ay tahay abniga wax badan oo ka qabtay hadalka nuuxiyo dabta loogu tagino udubiyo iyo dhagaatigu isaafi aqalbi udismaya dalka Soomaaliya maanta waxa ka hana qaaday oo ka jira 5 dawlad goboleed midba maalin uu soo dhismay waa kala horeeyeen dabcan waa kala taariikhda ismaysmeen aad u kala soo laakiin 5 dawlad goboleed oo isku xuquuq ah isku waajib ah isku door ka qaadanaya dawlad dhisida Soomaaliya waaye Hirshabelle ugu dambeysay oo maanta aan calaamad saarnay madaxweynaheedii iyo madaxweyne ku-xigeenkeedii marka waxay calaamad u tahay horumarka dawlad dhisida Soomaaliya ay gaartay waxay calaamad u tahay horumarka laga gaaray dhinacii federaaleynta dalka oo dastuuriga waajib dastuuri ah ku ay dawladda inay fuliso in badan oo kamidana horay looga gaabiyay oo suurtagali weyday duruufo jira awgood ay u suurtagali weyday yaa maanta leenahay usul hase yeeshee shaqada dawlad dhisida nidaamka federaalka ah meel fiican uu soo gaaray dawlad goboleedka shanaad inuu sameysmano horumar aad iyo aad u weyn waay laakiin nidaamka dawlad dhisida wali waxba ka sii laaban magaalada Muqdisho waa shaqada gobolka Banaadir maqaam gaar oo leeyahay dastuur ku qoran maqaamka gaar ah in la dabaqo way dhiman tahay